kulan aqoon isweydaarsi oo yeesheen culimada maamulayaasha madrasooyinka iyo xubno ka socday jaamacadda Umma University ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee Raaxa Palace waxaana faahfaahin dheeri ah naga siiyay Dr. Maxamed Maxamuud Cali oo kamid ahaa qabanqaabiyaasha garwadeenka ka ahaa kulankaasi. aqoon isweydaarsi dhexmaray dadkan madaarista ka socday macallimiintii iyo mudaradii reer Wajeer iyo aqoonyahankii ka imaaday xagga iyo jaamacadda Umma. hadafka laga leeyahay waxa weeye in kor loo qaado tayada madaarista islaamiga ah ee magaalada Wajeer. sidoo kale waxaan rabnaa haddaan nahay jaamacadda Umma gaar ahaan kulliyadda shariica in dhammaan madaaris islaamiga ah hadda Wajeer baan ka bilownay waxaan ku xijinaa dilada Garissa, Mombasa, Mandera, dhammaan meelaha ay degan yihiin muslimiinta. Dr. Maxamed ayaa sheegay inay qorsheynayaan sameynta manhaj la jaan qaadi kara bulshada muslimka ah ee ku dhaqan dalka Kenya isla markaana ay ku mideysan yihiin madrasooyinka. manhajka hadda madaarista hadda ay isticmaalaan inta badan ama dhammaan waddankan aan joogna Kenya waxa weeye waa manhaj mustawrad ah. mustawrad macnaha waxa weeye manhaj nooga yimid dibadda weeye. marka waxaan rabnaa waxa weeye insha Allah taala inaan manhaj aan leenahay oo ka tarjumaya baahidanada, ka tarjumaya bay'ada aan degannahay, ka tarjumaya mataqaanaa dadkanaga ka tarjumaya in oo soo saarahaya muwaadin wanaagsan oo muslima oo saalix ah oo daacin noqda oo dadkii anfaca in mataqaanaa manhajkaas la helo insha Allah taala. dadka qori doona waxa weeye ama waa dadkii waddanka lahaa weeye waddanka weeye mataqaanaa macallimiinta madaarista ka ahaa mudaradii iyo dhammaan weeye dad banaanka ka imaanay ma jiro. qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa ka hadlay dareenkooda. ما شاء الله ودورتي ugu horeysay oo jaamacadda Umma ay keentay waxaan isleenahay faa'iido weyn baa maanta laga helay laakiin waxaan aad u jeclaan lahayn in aad loo soo celiyo dowradan oo kale si ay horukac u yeeshaan macallimiinta oo ahmiyad weyn u siiyaan si ku bari lahaayeen ilmaha madaarista dhigta waxbarashadoodii. aad baan ugu mahadinay dakaatiirta. magacayga Bashiir Macallin Maxamed Daahir دور المدارس الإسلامية في تنمية المجتمع. runtii dowradan wax badan baan ka faa'iidnay oo maaragtay ku saabsan madaaristeena oo ah duruq tadriis qaabka wax loo akhriyo iyo waxyaabaha macalinka looga baahan yahay inuu kula tacaamulo ardaydiisa. marka waxaan islaahay wax badan baa laga faa'iiday. Xasan Mukhtaar Axmed Waayeelka wararka STN magaalada Wajeer.